والله ركوفر قلبي waxaan la iska har galmudug meesha maraa soo mari kartiin waxaan rajeynaa insha Allah galmudug inay raayaan sida lagu yaqaan reer galmudug waa ciyaartooy ama dhanka laha aatee waa firfircoon yihiin ciyaartan ii soo dhacday maanta hore aniga ii soo dhacday baba ku soo dhacday waa ii soo dhacday ciyaartan maanta hore ii soo dhacday ciyaartan ii soo dhacday Koonfur galbeed waxaan leeyahay awalna waa leen ka budi jiray hadeertana waa in ka badayna hadii Ilaahay idmo waxaan uga jawaabayaa tixahan gabayga oo soo socda 400 abeesada jidho uurka ka casaatay oo micida hoose iyo mariidka aayar socodsiisa ninka yiri afduub baan ku qaban aqalna waa saaran aakhiro inuu aaday waa wada arkaynaahu way hadaawadayaal waxaan igla soo hadlayaa caasimadda Dhuusmareeb maanta ciyaarta waxa ciyaaraya xulka kubadda cagta galmudug iyo waliba maamulka Koonfur galbeed waayahay labadaas koox yaa badi doono aragtida dadweynaha ayaa mikrofoonka waxa la dhax qaaday dadka ku sugan caasimadda Dhuusmareeb ila soco waayahay gabadhan ayaa goobteeda shaqada ugu imaaday waxaan ku sugannahay caasimadda Dhuusmareeb magacaaga igu bilow walaale aniso maxamuud indheera la dhahaa aniso maanta waxa ciyaaraya galmudug iyo Koonfur galbeed ciyaar aad u qurux badan labada xul aad ay isku soo diyaariyeen garoonka stadium muqdisho aad buu u soo buux dhaafay labada dhinac yaa taageero u tahay walaale sidoo runtaaba aniga meeshan jooga waa galmudug waxaana taageero u ahay xulka ciyaartooyda reer galmudug haye marka inaan guuleysana rajeyna insha Allah guul marka waxay u tahay galmudug waxay u tahay ciyaartii ugu dambeysay u tahay hadii laga badiyo way haraysaa saan jeclahay Koonfur galbeedna waxa waa ayadna hore 3 kulan ay u ciyaartay Koonfur galbeed maxaa fariina u diraysaa والله ركوفر قلبي waxaan la iska har galmudug meesha maraa soo mari kartiin waxaan rajeynaa insha Allah galmudug inay raayaan sida lagu yaqaan reer galmudug waa ciyaartooy ama dhanka laha aatee waa firfircoon yihiin waxaan rajeynaa inay soo guuleyso doonaan in laga guuleyso doono oo maleynaa reer galmudug waa adag yihiin haye marka maxaa fariina u diraysaa marka Koonfur galbeed Koonfur galbeed waxaan la galmudug lama tartami kartiin iska har walaalayaal iska har waayahay soo dhawow magacaaga igu bilow waa dhawaysaa magacayga waa Shaab Yuusuf Xasan waxaan joogaa magaalada Dhuusmareeb galabtay waxaan taageeraa xulka maamul goboleedka galmudug waxaan rajaynayaa xulka Koonfur galbeed inaan galabta ka badin doono natiijo ahaan 3-1 3 iyo hal ay ku dhamaan leedahay waayahay galabta isku aamo iyo ragiisa banaankaas aan dhigaynaa haye garoonka waxa soo buux dhaafiyay taageero aad u badan waxaan u badan kooxda galmudug sababtu maxay ku dhacday marka maamul goboleedyada dhanba markii la sheegay waa gobolka Banaadir galmudug waa haye marka inta kalena waa soo raacdo halka Koonfur galbeed fariin ugu dir marka galabta waxaan rajayaa Koonfur galbeed inaan ka badi doono insha Allah kulamada dambe iyo nasiib wanaagsan aan u rajeynaa waayahay caasimadda Dhuusmareeb ayaan ku sugnaa maanta soo dhawow magacaaga igu bilow magacayga waa Cabdirsaaq Aadan Cabdi kana mid ah dhalinyarada ku nool caasimadda dawlad goboleedka galmudug ee Dhuusmareeb waayahay maanta waxa ciyaar aad u qurux badan ciyaaraya kooxda galmudug iyo maamulka Koonfur galbeed waayahay yaa badinaya isleeda maanta horta ciyaarta galabta la ciyaaraya waa ciyaar xiiseed iyo xamaasadeeda wadata oo dhaxaysa labada maamul goboleed ee Koonfur galbeed iyo galmudug waxay ciyaaraysaa kulankeedii ugu dambeeyay kulankii finalka u ahay groupka ama isreebka halka Koonfur galbeed ay ciyaarayso kulankeedii saddexaad maamul goboleedka aniga aan taageerada u ahay waa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee galmudugna waxaan u rajeynayaa galabtay insha Allah inay guuleyso doonto kuna garaaci doonto maamulka Koonfur galbeed isku aamow iyo tiimkiisa iyo ukuku in galabtay 10 laba ilaabana loo dhigi doono laguna garaaci doono natiijo 2 gool iyo 1 gool ah siiba qaybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala bixi doonaa qaybta dambana wax gool ama la iska dhali doono wiilasha galmudugna banoonigii quruxda badnaay oo aan uga baranay galabtana inay soo bandhigaan waan ka rajeynayna insha Allah faataxadana inta laga aqriyo ma faataxada iyo masaajidda raqayda masaajiddan maanta waa la isku soo dardaray in galmudug aysan ku harin groupka maadaama kulan final uu noo yahay galabtana rajadeenada ay ku xirantahay inaan badino wax kale waxba noo tirin galmudug marka waa ka rajeynayaa Maal Axmed Taayil iyo xirtiisa iyo kabtan Gaawow waa ka rajeynayaa inay noo keeni doonaan koobka insha Allah caasimadda galmudug maxaa dadka ugu dubanahay maamul goboleedyada kale maxaa ugu dubanahay garoonka anaga soo buuxinay dadka reer galmudug aan u badan garoonkii ayaga soo buux dhaafiyay ma la isdhihi karaa muqdisho iyo ilaa iyo gobolada dhan reer galmudug ugu saameyn badan waa isdhihi karnaa horta galmudugta lagu sheegaa Soomaaliya oo dhan way wada degtaa ma ahan wax oo qalo oo gaar ah ama beel gaar ah ay degto galmudug waa halka meel oo ay laga helo dhammaan qabiilada Soomaaliyeed waana maamul dhammaan qabiilada Soomaaliyeed wada kulmiyay maanta qabiil walba waa laga helaa degmooyinka galmudugna waa degmooyin ay u kala qaybsan yihiin qabiilada Soomaaliyeed marka taas ayaa keentay inay ugu taageero badato maadaama ugu dad badan tahay uguna buulasho badan tahay taas ayaa keentay inay maanta ay galmudug noqoto tiimka ugu taageerada badan balse galabtan waxaan dhigi karaa labada maamul goboleed ugu taageerada badan tartanka maamul goboleed inta uu soconayo
kulan ah ayaan galabta daawo doonaa taageerada ugu badan galabta soo xari doonaan aaminsana garoonka waayahay koonfur galbeed maxaa ku salaamaysaa koonfur galbeed waxaan leeyahay kulanka xiga isoo adkeeya kulankan galabta saddexdii baa la qaadanayaa galmudug ayaana guuleysanaysa insha Allah waayahay guusha waan sugaynaa aragtida dadweynaha ayuu kaasi ahaa soo dhawow magacaaga ugu bilow waa dhawahay marka koowaad magacaygu waa Arwaax Cabdi Macallin ku sugan caasimadda Dhuusamareeb waayahay Arwaaxow Dhuusamareeb ayaa ku sugan tahay waxaan ii soo dhawow maanta ciyaar qurux badan waxaa wada ciyaaraya maamulka caasimadda Dhuusamareeb dhalinyaro matalaysa iyo waliba maamul goboleedka koonfur galbeed labada koox ciyaaro qurux badan ayay soo bandhigayaan oo waxa waay taageerad aad fara badan way yimaadeen haba u badnaadaan taageerayaasha galmudug adiga ahaan yaa taageeraysa Arwaaxow marka wada horta aniga waxaan taageeraa gobolka Banaadir waana meesha ka soo jeedo haddana ciyaarta gobolka Banaadir ciyaari maayo waxa ciyaaraya koonfur galbeed galmudug ku sheega kow den ciyaarta marka hadalkaada ay dhaxgal kow den marka u soo noqdo ciyaarta saadaalinteeda ciyaarta aniga waxa isleeyahay horta koonfur galbeed waa la xasuuqa labi eber looga badana galmudug badanays maxaa ku tiri awoodda galmudug waxa waay waa aragnay kulankii aan bixinay kaambeedii hore waxa waay macallin Daadir Amiin bedel ku sameeyay aan uga badan maahan awoodoodu waxa waay dadka dhan oo ogyihiin insha Allah waxa waay finalka haday awood leeyihiin inuu imaan doonaan laakiin ciyaarta waxaan u saadaalnaa inay labi eber ku badiyaan waayahay guusha labi eber ay ku dhamaanaysaa صح وما سنتا كونفور قلبت محلنا مرك كونفور قلبت waxa waa semifinalka nasiibkiin ku imaada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cali Cabdiraxmaan Maxamuud oo ku sugan caasimadda dawlad goboleedka galmudug Dhuusamareeb aniga hadaan ka hadlo dareenkayga anigu waxaan taageerayaa galmudug taageeraysaa ay galmudug maanta meeqay ku badinaysaa marka ciyaartaan aniga maantadii hore ii soo dhacday ciyaartaan waa 2-1 hal ay ku dhamaanaysaa 2 hal ay ku dhamaanaysaa koonfur galbeed maxallada marka koonfur galbeed waxaan leeyahay nasiibka idin wacnaado ciyaartaan ii soo dhacday maantadii hore aniga ii soo dhacday baba ku soo dhacday waa ii soo dhacday ciyaartaan maantadii hore ii soo dhacday ciyaartaan ii soo dhacday marka saasay natiijada insha Allah kulmada dambe ka faa'iideystaan leeyahay ma santa